kala duwannahay balseeko anigana yeeg maxaan ku kala duwannahay aniga waxaan leeyahay dhagar basaliya oo waxaa igu yaalla finan iyo baalal adigana elmo waxaad leedahay dhagar guduudan oo aad u qurux badan laakiin ma lihid finan mana u jeedo baalashaada inkastoy abi iyo elmo kala duwan yihiin haddana waa saaxiibo jecel inay isla qaataan wakhti haye asxaabay noo sheega waxyaabaha aad isla samaysaan idinka iyo saaxiibadiin sheeko ciyaal iyo sheeko xariir wasla ciyaarnaa wasla sheekaysanaa sifiyaadad isla ciyaarnaa waa ciyaarnaa waan isirnaa waan kubaddan ciyaarnaa marka hore ciyaar la yidhaahdo waa kukulu iyo tukalal aanan fahanay hababka iyo sidaanu kala duwannahay balse hadda aan fahanay waxaan isku mid ka nahay dhammaanteen elmo wuu garanayaa elmo iyo abi waxay jecel yihiin inay isla ciyaaraan runtii waa samaynaa sidoo kale labadeennu waxaan jecelahay inaan dadka su'aalo weydiinno runtii waa sax sidoo kale elmo iyo abi waxay wadaagaan asxaab sida beert erni iyo biku sidoo kale waxaan jecelahay inaan musiga garaacno elmo iyo abi waxay aad u jecel yihiin inay garaacaan muusiga talow maxaan kaloon jecellahay sidoo kale abi iyo elmo waxay jecel yihiin inay saxabka tumaan waa saxan tahay aan wada sacbinno hal mar bal fiiri sidaa isku midka u nahay oo haddana kala duwannahay sidaasay tahayna weli saaxiiba ayaan nahay hadda waan fahmay sida bakaylaha iyo jiirku ku saaxiibeen waxaan qabaa su'aal waa naxay siyaabaha kale ee saaxiibada isku mid ku yihiin ama ay ku kala duwan yihiin waa su'aal aad u fiican erni ayaa inooga jawaabi doona allah waa idin salaamay waa mar kale iyo barnaamijkiisa simi sheeko sheeko iyo anigoo ah erni waxaa halkan iga muuqda wiilal iyo gabdho ay u socoto ciyaar aad u qurux badan waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal waan idin salaamay waxaan ahay erni oo ka socda sasami sheeko sheeko waxaan ahay nasiib magacaygu waa shamiim oo aniguna waxaan ahay cumar haddaba ma taqaanaan waxaan aniga iyo saaxiibaday ka simannahay cumar iyo anigaba waxaan jecelnahay inaan ciyaarno waxaan ka helaa kubadda cagta cumarna wuxuu ka helaa dhudhumashooga waxaan ka helnaa in isla wala dheenno waa jawaab aad u fiican haye adiguna shamiim nasiib iyo cumar waa ilmaadeeraday saddexdayanuba buwaagta ayaan wada jecelnahay mid walba wuxuu ka helaa sheekooyin kala duwan laakiin saddexdayanuba waxaan wada jecelnahay inaan isla akhrisanno buwaagta akhrisanaa baashaal ma aha allah waa kuwan laba saaxiiba ah balaan weydiiyo maxaad ka siman tihiin ama aad ku kala duwan tihiin anigu waxaan ku hadlaa laxjadda waqooyiga saarna waxay ku hadashaa laxjadda koonfurta laakiin labadeena waxaan jecelahay unna isku mida waad ku mahadsantihiin jawaabtiinna ma taqaanan aniga iyo asxaabtaydu waxaan ka wada simannahay asxaabey dhammaanteen waxaan jecelnahay wararka xarfaha maanta ee hadda aan wada dhegaysanno haye waynakaa aydin salaami asxaabta sharafta leh waxaan ahay abi ku soo dhowaada wararka xarfaha ee barnaamijkeenna sisimi sheeko sheeko asxaabta xarafka maanta waa ra waxaana
laga wadaa roob. Hagaag, waa naga intaas maanta wararka xarfuhu. Asxaabtayda qaaliga. haye asxaabta maxaa kaloo ka bilaabma ra' allaha raax baa ka bilaabma ra' Waad saxan tahay, roob ayaa ka bilowda ra'. haye maxaa kale allah sug balukaadi elmo ayaa sheegi doona ra' waxaa loola jeedaa ri soo ma aha allaha ilmo, ri waxay ka bilaabmataa ra'. haye asxaabta, aniga iyo elmo maanta waxaan akrinaynay oo ku soo celcelinaynay xarafka maanta. haye maxaa kaloo ka bilowda ra' adna? haye saaxiibayaal waxaad sheegtaan erayo kaloo ku bilaabma ra' haye adinkaan idinka sugaynaa jawaabta. waan idin salaamay asxaabay, waa mar kale iyo saaxiibkiin beert. waxaan idin maqashiinayaa dhawaaq, waxaana laydinka doonayaa inaad ii sheegtaan waxa uu yahay dhawaaqaas. ana sawdiyaad ma tahay inaad ila dheesho ciyaartan? haa beert, waa ciyaar la yaab leh ee aan bilowno. haddaba aan bilowna dhawaaqan. allah, codkaa miyaan garan waaye? waa rixiyeysa oo waan aqaanaa waayo awowga ayaa leh ari badan. waxay u egtaa inaad ku dheerayso dhawaaqa xoolaha, bal ka waran midkan. hagaag, waxay ila tahay waa saciyaya. waa sax, waad ku fiican tahay ciyaartan. waxaan ku hayaa mid kale, bal isku day. allah, dhawaaqaasi runtii waa iga nixiyey, balse waa guuxa ama dhawaqa boqorka dugaagga, waana libaaxa. laakiin waxaan ku hayaa midkii aad ku banjari lahayd. waa kaneeco, waa inaan shabaqa ka galnaa. haa, ma qiyaas xumid, waad ku mahadsantaa ciyaartaad ila dhashay. iga durgaan kaneecada ka soo gale. carruuray waa idin salaamay, ma nabadba? waxaanahay ilmo hooyadiis. maanta waxaan idiin qaadi doonaa hees aad u macaan. ma la socotaa mararka qaarkood waxaa dhaca in aad kala duwanaataan asxaabta ama aad isku mid noqotaan. haddaba heestaydu waxay ka hadlaysaa qadarinta sinaanta iyo kala duwanaanshaha. waxaana filayaa in aad ka heli doontaan. ee aan isla heesno. adduunkeenna kala duwan, wejiyadeenna kala duwan, muuqaalkeenna kala duwan, gayigeenna kala duwan, wax walbaana kala duwan, muuqaalkeenna kala duwan, gayigeenna kala duwan, wax walba kala duwan, makhluuqaa isku mida dadka kala duwan, dunideennan quruxsan oo haddana kala duwan, intaan dul joogno waayaa noo kordhaya. si kastay ahaato ogsoonaada asxaabay sinaanta iyo kala duwanaanta. haddaysan ahayn qoyskeenna ama qof u dhashay dalkeenna, haddaba ogsoonaada weli waa asxaabteenna. waa asxaabteenna oo ogsoonaada. carruuray ogsoonaada waa asxaabteenna. ogsoonaada weli waa asxaabteenna. hagaag, waa adiyaa soo noqotay mar kale idiin haysaa. saaxiibayaal, waa habihii aan wax wada tirin jiray. haddaba aan xisaabinay inta cod aan maqli doono. hal baabuur. waa si wanaagsan, lambarka maanta waa kow. aan saabino. waa naga intaas lambarka maanta. haye asxaabta, ma maqasheen lambarka maanta wuxuu yahay? waa lambar kow. shaqo waxaan asxaabta. hadda waxaa la soo gaadhay xilligii sheekadeenna ee sheekoy sheeko. sheeka xariiro. diyaar ma u tihiin sheekada? haa abdi, waan dhegaysanayaa. waayahay, beri ayaa waxaa hal meel ku wada noolaa 3 dibi oo lahaa midabo kala duwan, iyagoo isi saacidi jiray, garabna isi siin jiray midba midka kale. waxay kala lahaayeen midabada madowga, casaanka iyo midabka cad. sidoo kale waxaa deris la ahaa oo garab deganaa libaax.
oo waxaad og tihiin libaaxu inuu inta badan jecel yahay ugaarsiga. haabe elma inta badan telefishanka wuxuu ka daawadaa libaax ugaarsanaya xayawaan kale. abti libaaxuma wuxuu isku dayay inuu ugaarsado dibiyada. haabiku wuxuu rabay inuu ugaarsado dibiyada laakiin way ku adkaatay libaaxa. maalin maalmaha ka mid a ayuu wuxuu u tegey dibigii caddaa wuxuuna ku dhahay waa inaad ka go'daa oo keligaa noolaataa. balse dibigii caddaa wuu ka diiday isagoo maanka ku haya dhibaatada ka dhalan karta kelinimada. kadib libaaxii wuxuu mar labaad u tegey dibigii madooba. kadibna waxa uu ku yidhi ma aragtid miyaa inaad leedahay midab ka duwan midabka saaxiibbada waxaana kuu qurux badan inaad keligaa daaqo. halka dibigii madooba uu si dhaqsala u fakeray ugana jawaabay libaaxii waxaannu leenahay midabbo kala duwan balse waxaannu nahay saaxiib kuwaas oo mar walba wada jira islana daaqa. haye kadib libaaxii muxuu sameeyey? ugu dambayntii libaaxii isaga oo go'doonsan ayaa wuxuu u tegey dibigii casaa wuxuuna ku yidhi waxaan doonayaa in aan kula saaxiibo ee ma tagnaa meel kale si aan ugu noolaanno. la yaab dibigii casaa si dhaqsa ayuu wuxuu libaaxii ugu jawaabay waxa aan saaxiibbaday la noolaa muddo aad u dheer mana doonayay in aan noolaado la'aantood. abti kuwaasi waxay ahaayeen dibiyo caqli badan. runtii haa markii ay saddexdii dibi guriga ku soo laabteen habeenkii waxay isla wadaageen sheekadii libaaxa iyo wixii dhex maray mid kasta. maalinkii xigay waxay dhammaantood u tageen libaaxa waxayna ku dhaheen waxaad tahay libaax annaguna waxaannu nahay dibiyo. waxaad jeceshahay ugaarsiga annaguna waxaannu jecelnahay daaqa. waxaad noqon kartaa dariskeenna laakiin annagu mar walba waannu sii wada deganaan doonnaa. waan wada daaqi doonnaa wada harsan doonnaa isna caawin doonnaa. xitaa haddii ay adiga dhibaato kula soo deristo waan ku caawin doonnaa. saaxiibayaal guntii iyo gabagabadii ayaa soo gaarnay xilligii aynu hawada isku maxasalaamayn jiray. elmana wuu ka helay wakhtiga uu idinla soo qaatay. ciyaaraha iyo sheekooyinkaba waxaannu ka barannay sinaanta iyo kala duwanaanshaha. sidoo kalena waxaynu barannay xarafka raa iyo lambar kow. haddaba ugu dambayntii waa barnaamijkeennii sisimi sheeko sheeko waxaannu idin leenahay kulanti dambe oo xiisa leh. nasiixada maanta waalidiinta qaaliga ah waalid ahaan waxaan fahansiin karnaa carruurteenna in dadku aanay isku mid wada ahaan karin laakiin in aan baran karno oo ka heli karno barashada waxa lagu kala duwan yahay. waxaad carruurtaada kala tashan kartaa sida ay wax u arkaan iyo fikradahooda ku aadan qofka ay markaasi isleeyihiin wuu ka duwan yahay dadka amaba iyaga ayaad waxaad bari kartaa adiga oo door ka qaadanaya sida looga faa'iidaysan karo oo wax looga baran karo oo loola baashaali karo qofka kale ee sifooyinkaa duwan leh. carruurta qaaliga ah naga soo waca nambarka watsapka noogana soo jawaaba su'aashan. waxaad noogu soo gudbin kartaan nambarkaas afkaartiinna iyo soo jeedintiinna waxaanad ka dhagaysan kartaan barnaamijka sisami sheeko sheeko etoobiya rediyo fana soomaaliya star f m kenya star f m